qorabooba yuusuf ducaale wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland oo waraysigan gaarka siiyay telefishinka caalamiga Royal ayaan wax ka weydiinay bal arrimaha doorashooyinka ee muddooyinka ugu dambeeyay khilaafka xoogani uu ka tagnaa aragtidiisa uu ka qabo iyo sidoo uu arko boobe ku soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي مركن كتاجن ديوان قلنت مدني جاء هي ديوان قلنت عد بحياشة والله وحى كلا جارة. مركن وكهل لنا ديوان قلنت مدني جاء أرنتو أرن سهلا معها. أرنتو السنة لورد جاينا من نقنيسه. مركن ديوان قلنت مدني جاء كهل لنا وحين كهل لنا دل كان يدت كلها أول شيء حق أولها والدستور كسيني حقوق ذي واجبات. markaynu diiwaangelinta madaniga ka hadlayno ama jinsiyadda ka hadlayno ama muwaadinimada ka hadlayno waxay xudun u ahayd halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta qaran ee aysan horseed ka ahayd mushkiladda muwaadinimadu iyo jinsiyaddu waxay xudun u ahayd burburkii iyo tabaalihii iyo tawstii la yaabka lahaa ee ay dadkan iyo dalkani soo mareen halkan waxaynu ku soo martay berigii nidaamkii maxamed siyaad barre joogay ama nidaamyo badan oo ka horreeyayba in la isku oran jiray dhulka waxa leh dadka Soomaaliyeed oo aan xadidnayn dadka Soomaaliyeed ku yihiin taasi waxayna dhaxalsiisay oo aynu gaadhnay heer muwaadiniintii reer Hargeysa reer Burco reer Boorame reer Laascaanood iyo cid waliba ay noqdaan muwaadiniin labaad iyo muwaadiniin saddexaad oo ay dad kale noqdaan muwaadiniintii dhabta ahayd ee dalkan iyo dadkan sheeganayay markaynu ka hadlayno muwaadinimada Somaliland ama jinsiyadda Somaliland maaha arrin sahlan dastuurku hal qodob oo qodobka afraad ah oo laba faqradooda ayuu ka dhigayaa oo ah qof kasta oo u dhashay Somaliland ama ka isirran dadkii deganaa 26 Juun 1960 qodobkaasi mid inagu filan oo tilmaan fiican ka bixinaya muwaadiniinta Somaliland maaha waa xus dastuurkana 1997 shirweynihii labaad ee beelaha Somaliland ee markii labaad xigaa lagu dooranayay ayaa gudidii dastuurka soo qoraysay lagu bixiyay 2001diina 20 May afti ayaynu qaadnay ilaa maanta soo taxnaa dastuurka waxa inaynu dib ugu noqono qodob walba oo muhiim ah oo ku yaala dabeedna xeer baa qeexaya xeerkaasi hadin la qeexo wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda Somaliland ee maanta jirta maaha inay ka soo qaado xalay waxaan maqlayay wasiirka arrimaha gudaha oo leh muddo koor baan dhameynaynaa diiwaangelinta muwaadiniinta waxaanu dhameynaynaa koor diiwaangelinta codbixiyaasha waxaasina wax suurtoobaya maaha diiwaangelinta muwaadiniintu waa wax bilow leh oo aan dhammaad lahayn waa wax bilow lahoo imika ama waqtigay doontaa noqotay inta la bilaabo laakiin tii maalin kasta oo qof dhasho maalin kasta oo qof dhintaba waana lagu daraya qofka dhashayna waa lagu daraya ka dhintayna waa laga saaraya marka dhammaad male intay ummadani jirto ee Ilaahay uu awood siiyay inay ku noolaato adduunkan diiwaangelinta madanigii way oolaysaa ilmihii dhashana waa la diiwaangelinayaa qofkii dhintana waa laga saaraya diiwaangelinta codbixiyayaashu way mudaysantahay doorashadan imkeen ugu soo foolle ayay ku mudaysan tahay doorasho ma dhacayso haddaanay diiwaangelintii codbixiyayaashu jirin komishankii hore wuxuu inoo qabtay September ilaa December inay diiwaangelinta codbixiyayaashu sameeyaan xeerku wuxuu odhanayaa 6 bilood ka hor diiwaangelinta codbixiyayaasha waa inay doorashada ka horeysaa 6 bilood 6 bilood baynu ku jirnaa dabeedna xeerkii odhanayay 6 bilood ayaa imika la doonayaa baarlamaanka in la yiraahdo 6 bilood gudahood balinayno 4 bilood iyo 3 bilood ku dhamayno hadba salaadii joogta ayaa la tukadaa maanta waxa taagan diiwaangelintii codbixiyayaasha xeer 2007 soo baxay markii taaba galay 2008 dadka la diiwaangeliyay qaladaad aynu sameynay aynu ku noqon karayno laakiin diiwaangelinta madanigii shalayna way taagneed kal horena way taagneed 2010kiina way taagneed weligeedna way taagnaanaysaa waxay la tahay inaan labada diiwaangelinood inta la isu barkiyo aan la isku dilin iyadana aan la foolorino iyadoo waqtigeedii gaadhinba intay dhalays tiraahdo aanay halkaa ku dhiman boobe marka mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha oo kale markay warbaahinta la hadlayaan waxay tilmaameen in diiwaangelintan ay u soo horeysiyeen kadib markii la waayay diiwaangelintii hore ee diiwaangelinta codbixiyaasha qarashkeedii oo dadkii deeqbixiyaashii inaga caawin lahaa qarashaadka ku baxay doorasho diiwaangelinta
codbixiyaasha aan la haynin ilaa hadda ka war marka miyaanay saxsanayn haddii ay labadii diiwaangelinta isku qasmi lahaayeen ay tan soo horeysiyaan aniga waxay ugu wardambaysay komishanka doorashooyinka oo haya nidargalkii deeqbixiyayaasha inay boqolkiiba 75 bixinayaan dawladdeenu boqolkiiba 25 bay bixin jirtay laakiin tii markii dambe ay soo gaadhay heer ay ku dhiirato inay boqolkiiba 30 ay bixiso madaxweynuhu ballan qaaday xukuumaddu nidar ku gashay farsamo ahaanna laga caawiyo deeqbixiyayaashu naga caawiyaan qalab ahaanna naga caawiyaan aqoon ahaanna naga caawiyaan deeq ahaanna naga caawiyaan laakiin tii tan madanigi ay ku kooban tahay markaynu ka hadlayno diiwaangelinta madaniga ah uma baahnin waxaan u baahnay horta xeerkii diiwaangelinta madaniga ah dastuurka qodobkaas ka qoraya qodobkaasina inaguma filla xeer baa qeexaya waa faqradda labaad ee qodobka afraad horta xeerkii in la soo dhigo ayaa loo baahan yahay markaynu ka hadlayno diiwaangelinta madaniga ah xeerarka waxaa ka horraynaya diraasad sidee baa loo sameeyaa diiwaangelin madaniya mujtamac raacata ah oo dadkeedu raacata yihiin mujtamac reer guuraayi sidee buu 2014 isagoo oo maraya sidee buu u samayn karaa diiwaangelin madaniya horta waa in la dersaa yaa inala mid ahaa ee innagoo kale ahaa ee aan hore u lahayn waxaan oo kale ee dabeedna maalinuun ku soo hambabaray inay diiwaangelinta madanigaa samaystaan 4-5-6 diraasadood inaynu soo qaadanno oo aynu derisno oo aynu ka baaraandegno dabeedna teennu siday noqonayso aynu ka soo dheeganno waddankan jamhuuriyadda somalilan wuxuu ku dhismay wadatashi wuxuu ku dhismay isu tanaasul wuxuu ku dhismay dad wada jira iyo dawlad wada socdaa oo iyagoo wada jira oo wada tashanaya go'aan qaata dabeedna go'aankaa fuliya maanta diiwaangelintii madaniga ahayd markaad websaytada gasho mareegaha intaasoo deegaan baa waxay leeyihin kuma jirna annagu meesheedana laga qaban maayo dawlad dhexe oo xoog leh oo wax riixdaana meeshii ma joogto oo balodhadii hargeysa ayay sugi kari laadahay marka waxaynu u baahannahay inaynu ku heshiinno inaynu soo dersino diiwaangelin madani siday u dhacday meelahaan agteenna ama dalalka aynu waayaha iyo duruufta wadaagno dabadeedna aynu xeerkeennii samaysanno dabeedna xeerkii aynu ku heshiinno dabeedna sharciyanno golayaasha xeer dejinta geyno dabeedna madaxweynuhu saxeexo markaa kadib aynu ku tallaabsanno laakiin tii diiwaangelin la yidhaahdo 2 bilood baa lagu qabanayaa iyo bil baa lagu qabanayaa iyadoon farsamadii iyo adduunkii iyo aqoontii loo hayn waan ka warqabnaa tamarta iyo taagta ay wasaaradda arrimaha guduud leedahay marka ayaanay dadka ugu baaqin inay diiwaangelin wakhti kooban ku samayn karto ha soo deristo ha soo dhigto aynu aragno aynu ka heshiinno waxaan u arkaa uun dadku waxay u arkaan in doorashada dib loogu dhigayo tani dib u dhig ma aha waayaani doorashaba dhicin weeye waa hagaag oo fikirkii asxaabta siyaasadda ama asxaabta mucaaradka ee somalilan inta badan waxay ku celcelinayaan diiwaangelintan madaniga waxay xukuumaddu soo horeysiisay in dib u dhac lagu keeno diiwaangelinta codbixiyaasha kadibna sidaas ay muddo kordhin xukuumaddu u saysato oo la qabtaa fikirkaas mayaanu ma qaba inay dib u dhac ku tahay waxaan u arkaaba inaanay dee markaa doorasha u suurtagelayn markaynu ka hadlayno diiwaangelinta madaniga ah wax intuu imika bilaabma dhammaanaya ma aha maalin kastoo qof reer somalilan dhintaba waa la diiwaangelinayaa maalin kastoo qof reer somalilan dhashaba waa la diiwaangelinayaa marka waa hawluun bilaabmaysaa laakiin tii aan dhammaad lahayn ay iska soconaysaa intuu aadamuhu jiraba marka anu hakadu ma arkee waxaa weeye yacni carqalad aan la qaadi karin waxaan u arkaa inay diiwaangelinta madanigiina sidaa ku dhimanayso diiwaangelintii codbixiyaashaduna sidaa ku dhimanayso doorashaduna sidaa ku dhimanayso sidaasina sin ummadda iyo dadka iyo xukuumadda iyo cid walba u dana ma aha ugu dambayn boobay istaale su'aal ka baxsan haddaan ku weydiiyo waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta waaweyn ee reer somalilan ilaa xataa laan ma saacin xisbaad ka tirsantay ood ku biiraysid bal ka warran xaggeed mustaqbalkaagii siyaasadeed xaguu ku dambeeyey ma kuu qorshaysantay xisbiyada somalilan ka jira aad xisbi ka mida ku biirtid wallaahi dee dadku qasab ma wada ahaa dadkoo dhamme axsaabta ma wada galaan qasab ma aha in axsaabta la galo waa uun inuu qofku dee ra'yi siyaasiya samaysto way fiican tahay laakiin tii dee qasab maaha qof kasta oo muwaadinoo reer somalilandiba inuu xisbi ku biiro waa maalintii dhaweyda khamiistii ugu dambaysay uun maqaaladii hadalhaynta ee aan qori jiray wixii aan dadkula dardaarmayay wuxuu ahaa kollayba xisbigii xisbalxaakimka sheeganaya kulmiye xisbi jira maanta ma aha xisbigaa dhumaalaysiga iskaga jira waa la islaayey waa la heshiiyey waa la islaayey waa la heshiiyey
marka taladu waxay saaran tahay labada xisbi ee kale wixii lagu tari karo in lagu taro hagaag aad iyo aad ayaad mahadsan tahay daawadeelkaasi waxuu ahaa qoraa bawba yuusuf ducaale wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan oo waraysi khaasa siinayay telefishinka caalamiga royal waad mahadsan tahay. Thank you.